asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta haddii alla idmo idiinma wado cashar, laakiin waxaan idiin wadaa arrin aad iyo aad muhiim u ah. arrintaa muhiimka ah ee aan idiin wado waxay tahay sababta go-aamada aynu qaadanno ay u fuli waayaan. maalin walba, galab walba, habeen walba iyo weliba waqti walba waxaad qaadataa go-aano, go-aanadaas oo badanaa aan fulin. haddaba sababta ugu weyn ee go-aanadu ay u fuli waayeen waxaan ka arki doonaa ama ka baran doonaa aayaddan qur-aan ee soo socota. aayadan qur-aan alla wuxuu ku leeyahay faidaa cazamta fatawakal cala allah. haddaad go-aan gaadho ilaahay tala saaro. go-aanku wuxuu doona ha noqdo, go-aanku wuxuu doona ma garanaysaa ha ahaado. hadduu wanaagsan yahay wuu wanaagsan yahay, hadduu xun yahayna ilaahayba ha weydiisanin hadduu mid xun yahay. laakiin go-aanku hadduu wanaagsan yahay, marmar waxaa dhacda wax adiga kuu wanaagsan laakiin aan adigu kula wanaagsan laakiin aan naf ahaan kuu fiicnayn. ilaahay suu inoo sheegay waxyaalaha qaar aynu jecelnahay way inoo xun yihiin, waxyaalaha qaar aynu necebnahayna aynoo fiican yihiin. haddaba go-aanka aad qaadanayso oo mar walba aad gaadhayso, sababta uu u kiclayahay iyo sababta uu u dhaqaaqi layahay waxa weeyaan in aanad go-aansan go-aankii dhabta ahaa oo aadan ku dhaqaaqin iyo in aadan tala saaranin ilaahay. marka waxaynu isku ognahay waxa weeyaan haddii alla idmo qof walbow isku day marka aad go-aan gaadho inaa ilaahay tala saaratid, inaa ilaahay la baridid, ilaahayna ka dhigatid la taliyahaaga kuugu dhow iyo cidda kuugu dhow ee arintaada aad kala tashato. waxaan rajaynayaa in fariintan aad sheergarayn doontaan haddii alla idmo. waxaan rajaynayaa inta aan ogeyn inaad la wadaagi doontaan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.